السلام عليكم dhamaantiin saaxiibada sharafta badan. Filimku wuxuu ku bilaabmayaa baabuur xamuul ah oo dhex maraya saxaraha oo ay gadaal ka saaran yihiin 14 qof. Waxaa soo baxday in dadkaasi ay yihiin muhaajiriin Mexican ah oo si sharci daro ah uga gudbaya xadka Mareykanka si ay u helaan nolol tan dhaanta. Waxaa ka mid ah nin la yiraahdo Moises oo bombale sita. Bombalaha ayaa codad sameynaya mana garanayo sida loo damiyo. Nin ayaa ku amray inuu caloosha ka cadaadiyo isla markiibana wuxuu joojinayaa buuqa. Nasiib daro iyagoo ka gudbaya meel saxaro cidla ah ayuu gaarigu si lama filaan ah u jabay. Darawalka Lobo ayaa u soo baxay suu u hubiyo oo wuxuu weydiinayaa kooxda soo galootiga ah in mid iyaga ka mid ah uu hagaajin karo gaariga. Moises ayaa gacanta kor u taagaya oo ku andacoonaya inuu makaanik yahay. Wuxuu u soo dhawaaday afaafka hore ee gaariga suu u eego mashiinka. Waxaana uu ogaaday in mashiinku uu burburay oo aan hagaajin karin isagoo aan haysan ikhtiyaar kale. Lobo wuxuu soo jeedinayaa inay sii wataan safarkooda lugta ee dhulka saxaraha. Mid ka mid ah asxaabtiisa Mekas ayaa ka digay inay tahay wado khatar ah halkaasoo koox burcad ah dhawaan lagu gowracay. Si kastaba ha ahaatee Lobo ayaa u xaqiijiyay in kooxda loo dilay sababo la xiriira ka ganacsiga daroogada ee xubnaha kaarteelka. Mekas weli wuu ka walaacsan yahay laakiin Lobo ayaa ugu dambeyntii ku qanciyay isagoo u ballan qaaday lacago badan. Dabadeed wuxuu muhaajiriinta farta ugu fiiqay jihada Mareykanka oo uu ka codsaday dhammaantood inay ka soo degaan gaariga. Kooxdu hadda ma haystaan wax kale oo aan ahayn inay maraan saxaraha si ay u gaaraan meeshii ay u socdeen. Meel kale oo saxaro ah waxaan ku aragnaa nin Mareykan ah oo la yiraahdo Sam oo baabuur xamuul ah wata isagoo khamri cabaya. Waxa weheliya ay uu jecel yahay oo aad u feejigan Tracker. Waxayna labadooduba u dhaqaaqeen inay soo ugaarsadaan bakayle. Waxyar ka bacdi soo galootigu waxay soo gaareen xuduudka oo uu silig ku xiran yahay. Lobo ayaa shaaca ka qaaday in hadda ay u gudbi doonaan Mareykanka. Wuxuu ku nuuxnuuxsaday baahida loo qabo taxadarka. Wuxuuna sheegay in haddii ay maqlaan xitaa dhawaaq yar ay tahay inay si degdeg ah u dhuntaan. Kooxdii way ogolaatay waxayna mid uga soo gudbeen xayndaabka iyagoo u sii gudbaya dhanka kale. Muuqaal kale waxaan ku aragnaa Sam oo soo qabsaday qorigiisa oo ku toogtay meel fog. Rasaasta ayaa laga maqlay guud ahaan deegaanka taasoo xiisad ka dhex abuurtay dadka soo galootiga ah kuwaasoo gabaad ka dhiganaya goob ay ka buuxaan tiitiin iyo geedo yaryar oo qodax leh. Si kastaba ha ahaatee waxaa soo baxday in Sam uu kaliya ugaarsanayay bakayle. Muddo kadib kooxdu waxay aamintay inay khatarta ka badbaadeen oo ay fariisteen si ay u nastaan oo ay cabayaan xoogaa biyo ah. Inta lagu jiro waqtigan nin ayaa dhibaya gabar la yiraahdo Adela wuxuuna isku dayay inuu shukaansado. Waxay ku andacoonaysaa inuusan ahayn ninkeeda oo ay waalidkeed kaliya ka codsadeen inuu ilaaliyo iyada. Markuu taas arkay Moises wuu soo dhexgalay oo ninka mashquuliyay suu uga ilaaliyo inuu ka soo gudbo xadkiisa. Kooxda ayaa markaa kacday oo dib u bilaabay safarkoodii. Dhanka kale Sam wuxuu dhex marayaa isla aaga markaasoo uu la kulmay sarkaal roondo ah. Sarkaalka ayaa weydiinaya waxa uu ka samaynayo aaga xuduudka iyo inuu sharci haysto iyo in kale. Sam wuu qoslay uu la yaabay inuu u baahan yahay ogolaansho iyo in kale suu u ugaarsado bakaylaha. Markaas sarkaalku wuxuu u sheegay inuusan u baahnayn. Halkan Sam wuxuu sheeganayaa inuu gudbiyay warbixin ku saabsan soo galootiga sharci darada ah ee ku soo qulqulaya aagan. Wuxuuna su'aal ka keenay bal in booliisku ay sameeyeen wax baaritaan ah. Sarkaalka ayaa ku jawaabay inuusan ka warqabin xaaladda taasoo u muuqata inay niyad jabisay Sam. Muuqaalka xiga soo galootiga ayaa loo qaybiyay laba qaybood. Hal koox oo uu hogaamiyo Lobo ayaa si degdeg ah u socota oo aad u fogaaday. Markaa waxaa jira koox gaabis ah oo ay ka mid yihiin Moises, Adela, Mekas iyo laba kale. Mekas wuxuu ku qaylinayaa Lobo suu u gaabiyo oo uu u sugo iyaga. Laakiin Lobo wuu qoslayaa oo iska dhigatiraya isaga. Wuxuu ku eedeeyay inay si tartiib ah u socdaan. Wuxuuna ku dhiirigelinayaa kooxdiisa inay si degdeg ah u socdaan. Isla markaa kooxda gaabiska ahi waxay gaariga Sam ka arkeen meel sare oo buur ah oo si degdeg ah ayay u dhuumanayaan. Daqiiqado kadib Sam wuxuu ka soo baxay gaarigiisii oo wuxuu arkay maro gacmeed dhulka taala. Wuxuu siinayaa Tracker suu u uriyo. Wuxuuna ku amray inuu ogaado inuu jiro qof meelahan ka dhow. Waxyar kadib waxay arkeen kooxda soo galootiga ah ee uu hogaaminayo Lobo oo meel fog sii socda. Sam wuxuu qaatay qorigiisa isagoo beegsanaya mid iyaga ka mid ah. Qof walba wuu la yaabay markay xabad uga timid meel aan la garanayn. Laakiin Sam aad ayuu ugu farxay markuu arkay koox dad ah oo naftooda la baxsanaya. Wuxuu sii waday inuu mid u toogto. Kooxdii waxay si waali ah u dhex marayaan saxaraha weyn si ay naftooda u badbaadiyaan. Laakiin Sam wuxuu ku dhamaanayaa inuu wada toogto. Dhanka kale kooxda Moises ayaa meel fog ka daawanaya ninka dilaya qof walba. Waxayna ka argagaxeen muuqaalka foosha xun. Kadib markii la dilay dhammaantood Sam wuxuu naftiisa ugu hambaliyeeyay guushiisa. Qofkan xaasidka ah wuxuu nacayb qoto dheer u qabaa muhaajiriinta sharci darada ah. Wuxuuna aad ugu farxaa inuu gacantiisa ku dilo. Inta lagu jiro waqtigan Tracker wuxuu sii wadaa inuu si adag ugu ciyo jihada ay kooxda Moises
Moises u sii socoto. Sam dabadeed wuxuu arkay dhowr qof oo ku socda buur, wuxuuna go'aansaday inuu iyagana dilo. wax yar kadib Sam wuxuu yimid dhamaadka wadada, halkaasoo uu ka soo baxay baabuurkiisa oo uu weydiistay tracker inuu raadiyo kooxda. wuxuu daba socdaa eygiisa isagoo qoriga gacanta ku haysta. kooxdu waxay markiiba dareemeen eyga xun oo daba ordaya, taasoo keentay inay cararaan. daqiiqado kadib ninkii markii hore dhibayay Adela ayaa ka dhacday boorsada dhabarka oo u degdegay inuu soo qaato. natiijo ahaan wuxuu ka harayaa kooxdiisa, tracker ayaana aakhirkii qabtay. Adela way dareentay tan waxayna ku degdegtay inay caawiso ninka, laakiin Moises wuu joojiyey iyada sababtoo ah aad bay u dahday. tracker si xun ayuu dhuunta uga jeexjeexay ninka oo ugu dambeyntii dilay. intaas kadib afarta qof ee soo hartay waxay sii wadayaan inay kor u socdaan halka tracker uu eryanayo iyaga. dabadeed geed bay kor u fuuleen oo waxay gaareen dhinaca kale ee buurta. tracker sidoo kale wuu isku dayay laakiin kuma guulaysan. markaa wuxuu bilaabay inuu u raadiyo siyaabo kale oo uu ku fuulo. wax yar kadib eygii xumaa wuxuu helay waddo kale wuuna sii waday inuu ka daba tago. Sam waxa kale oo uu fuulay baabuurka dushiisa oo wuxuu eegayaa Moises iyo asxaabtiisa. muddo kadib kooxdu waxay soo gaadhay meel god ah, si ay naftooda u badbaadiyaanna waa inay ka boodaan dhagax weyn oo kale. iyagoo og in tracker uu ka dambeeyo, ma haystaan wax ikhtiyaar ah oo aan ahayn inay khatarta qaataan. Moises, Adela iyo Mekas ayaa si guul ah u booday oo waxay yimaadeen dhanka kale. laakiin ninka afraad aad buu u cabsanayaa oo geesinimadii uu ku boodi lahaa ma leh. meel fog ayuu ka arkay tracker wuxuuna si geesinimo leh isugu dayay inuu u boodo dhagaxa kale. nasiib daro si dirqi ah ayuu ugu dhegay dhagaxa. waqtigan xaadirka ah Sam wuxuu ku toogtay ninkii qorigiisa, taasoo keentay inuu dhulka ku dhaco. xabadu kuma dhicin Moises, wuxuuna la cararay intii kale ee badbaaday. intaas kadib Sam wuxuu bilaabay barashada maabka aagan suu u saadaaliyo dariiqa ay ku baxsan karaan. kadib wuxuu ku amray eygiisa daacadda ah inuu cayrsado saddexda soo galootiga ah ee soo haray. trackerna wuxuu bilaabay inuu cararo, halka Sam uu ku booday gaarigiisa oo uu bilaabay inuu kaxeeyo. kadib kooxdu waxay arkaysaa Sam isagoo ku jira gaarigiisa, laakiin ma arkin iyaga intay ku dhuumanayaan godka. Sam kadib wuxuu ka soo baxay baabuurkiisii oo bilaabay inuu eego agagaarka. nasiib daro tracker ayaa meel fog ka arkay soo galootiga wuxuuna bilaabay inuu u ciyo. saddexdii ayaa mar kale kor u fuulaya dhagaxa, waxayna isku dayeen inay ka baxsadaan halkaas. laakiin qaylada joogtada ah ee tracker darteed Sam wuxuu noqonayaa mid feejigan. waxa kale oo uu bilaabay inuu fuulo dhagaxa. wuxuu si dhaqso ah u arkay Mekas oo wax yar ka dambeeya Moises iyo Adela. naxdin degdeg ah kadib wuxuu ku dhammaanayaa inuu ku dhaco dhulka hoose. markuu taas arkay Sam wuxuu ka soo degay dhagaxa wuxuuna madaxa ka toogtay Mekas suu ugu dhammeeyo. hadda kuwa kaliya ee badbaaday waa Moises iyo Adela, kuwaasoo weli ku dhuumanaya buurta gadaasheeda. si lama filaan ah bombalaha ku jira boorsada Moises ayaa bilaabay inuu daaro muusig, sidaas darteed si dhaqso ah ayuu u damiyey. tracker iyo Sam way maqlayaan waxayna qaadayaan shaki xoogan oo ah in labadoodu ay weli u dhow yihiin. laakiin Sam wuu ka daalay maalinta dheer, habeenkuna wuu soo dhow yahay. markaas wuxuu go'aansaday inuu tago oo uu berito ugaarsigiisa sii wato. fiidkii Moises wuxuu ka murugooday geerida Adela saaxiibkeed, laakiin waxay u sheegtay inaysan garanayn muddo dheer. waxay sharaxday inaysan doonayn inay halkan timaado, laakiin waalidkeed ayaa u malaynayay in magaaladoodu aanay ammaan u ahayn iyada. Moises ayaa markaa daaha ka qaaday inuu si sharci daro ah ugu noolaan jiray Ameerika, isaga iyo xaaskiisa iyo wiilkiisa. maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa istaajiyey nin booliis ah, sababtoo ah waxaa ka jabnaa nalka hore, taasoo keentay in la xiro. marka hore wuxuu isku dayay inuu dalka uga soo baxo nidaamka saxda ah, balse waxaa ku gacan sayray booliiska deegaanka oo lagu tuuray xarun lagu hayo. bombalaha waxaa siiyey wiilkiisa markii la soo tarxiilayay. Moises wuxuu ballan qaaday inuu maalin uun soo noqon doono, wuxuuna diyaar u yahay inuu sameeyo wax kasta suu dib ula midoobo wiilkiisa. subaxdii xigtay Adela waxay aadaysaa buurta dusheeda, waxayna meel fog ka aragtay Sam oo wata baabuurkiisa. dabadeed dib ayay u soo noqonaysaa si ay u raadiso Moises, laakiin jidka waxay ka naxday joogitaanka masaska oo tiro badan. iyadoo ay taasi jirto, gabadhu waxay si taxadar leh ugu dhaqaaqday jiho kale, iyadoo si dirqi ah uga fogaanaysa qaniinyada maska. markii ay heshay Moises waxay u sheegtay qorshaheeda ah inay xadaan gaariga ninka cad oo ay kala tagaan. Moises wuu welwelsan yahay wuxuuna ku adkaystay inay u baahan yihiin inay ka takhalusaan eyga marka hore. sidaa darteed Adela waxay u xaqiijinaysaa inay hayso qorshe oo kaliya ay u baahan tahay bombalihiisa. muuqaalka soo socda waxaan aragnaa Sam oo urursanaya alaabtiisa, halka tracker uu jiifo dhulka. isla markiiba eygu wuu toosay oo bilaabay inuu meel u cararo. Sam wuxuu u qaatay in soo galootigu ay dhow yihiin, sidaa darteed wuxuu la soo dhaqaaqay qorigiisa. waxay gaareen buurta dusheeda, balse waxay heleen oo kaliya bombale muusig garaacaya oo masas ku hareeraysan yihiin.
Sam dabadeed wuxuu arkay soogalootiga oo u socda baabuurkiisa. Wuxuu isku dayay inuu rasaas ku furo, laakiin waxaa soo dhex galay mas. Halkan Sam ayaa markaa bilaabay inuu meel fog ka soo toogto labada muhaajiriin, laakiin wuxuu seegayaa bartilmaameed kasta. Moses ayaa qabsaday anteenada baabuurka oo u adeegsanaya suu u furo albaabka hore. Waxay maareynayaan inay gudaha u galaan oo ay xirtaan daaqadaha, halka Tracker uu bilaabay inuu raadiyo hab uu ku qaniino. Nasiib wanaag Moses wuxuu istaaray baabuurka isla waqtiga oo uu ka sii waday halkaas. Muhaajiriinta ayaa aad ugu farxay inay ugu dambeyntii ka tageen, waxayna bilaabeen inay u dabaaldegaan guushii ay gaareen. Si kastaba ha ahaatee farxadoodu waa la soo gaabiyey. Sam ayaa si lama filaan ah u toogtay gaariga isagoo Adela ku dhuftay garabka, wuxuuna geliyey Moses xaalad argagax leh taasoo shil keentay. Nasiib wanaag Moses wuxuu maareynayaa inuu ka soo baxo baabuurka isagoo aanay waxba gaarin. kadib wuxuu caawinayaa Adela oo dhaawacantay oo wuxuu gaariga ka soo qaatay qalabka gargaarka degdega ah. Labaduba si degdeg ah ayay uga carareen goobta. Cabaar markay socdeen waxay hoos yimaadeen tiitiin weyn, waxayna go'aansadeen inay ku nastaan. Moses ayaa furay sanduuqa gargaarka degdega ah, halkaasoo uu ka helay faashad iyo flare gun. Wuxuu daryeelayaa dhaawaca Adela, wuxuuna u sheegayaa inay tahay inuu kaligeed kaga tago meesha. Moses wuxuu sheegay in haddii uu joogo ay labadooduba dhiman doonaan, oo uu go'aansaday inuu mar kale arko wiilkiisa. waqti kadib Sam iyo Tracker waxay arkayaan raadka dhiiga oo isla markiiba waxay yimaadeen tiitiinka weyn oo ay Adela ku nasanayso. Adela waxay ogaatay imaanshahooda waxayna isku dayaysaa intii karaankeeda ah inay ka dhuumato. xaaladan kacsan Moses wuxuu meel fog ka soo riday flare gun oo ka xanaajiyay Sam suu uga daba yimaado. Sam wuxuu farayaa Tracker inuu ka daba tago Moses isagoo sheegaya in gabadhu dhaawacantay oo ay dhiman doonto dhawaan. Intaas kadib Moses wuxuu bilaabay inuu u ordo dhanka goobta tiinka halka Tracker uu daba socdo. Moses wuxuu qaadayaa talaabada muhiimka ah ee uu si taxadar leh ugu marayo geedaha tiitiinka. Intay tani dhacayso aygu xawli sare ayuu ku socdaa. Ugu dambeynna wuxuu maareynayaa inuu soo qabto, laakiin Moses wuxuu si toos ah afkiisa ugu toogtay xabadii ugu dambeysay. Tani waxay keenaysaa in aygu uu aad ula qayliyo xanuunka isagoo ku xayiran tiitiinka dhexdiisa. Moses ayaa markaa ka faa'iideysanaya fursad uu ku baxsado. Dhanka kale Sam wuxuu maqlay aygiisa oo qaylinaya, wuuna murugooday markii uu arkay Tracker oo gubanaya. Suu u soo afjaro xanuunkiisa wuxuu ku dhamaanayaa toogashada Tracker. Kadib dhimashada aygii uu jeclaa, Sam ayaa qanciyay naftiisa oo ku dhaartay inuu ka aarguto ninkii sameeyay arrintan. Dhanka kale Moses wuxuu meel fog ka arkay baabuur ilaalinaya xuduudka. Wuu qaylinayaa laakiin wuu ku guuldaraystay inuu soo jeediyo. Sam wuu arkay isaga oo bilaabay inuu dhowr jeer xabado ku rido, laakiin Moses ayaa ku guuleystay inuu ka baxsado rasaasta. Soogalootiga maskiinka ah wuxuu ku dhuumanayaa duurka isagoo ka baryaya gargaar oo ooyaya. Waxyar kadib Moses wuxuu bilaabay inuu fuulo buur kale oo dhagax ah suu Sam uga fogaado. Samna wuxuu sii wadaa inuu dabagalo halka Moses uu ku dhuumanayo dhagaxa gadaashiisa. Labadooduba waxay ku wareegayaan hareeraha dhagaxa. Ciyaar dheer oo dabagal ah kadib Sam ayaa ugu dambeyntii istaagay gees ka mid ah dhagaxa isagoo isla markiiba ku dhuumanaya Sam gadaashiisa. Moses wuxuu gartay inay tahay fursadda kaliya ee uu kaga adkaan karo, sidaa darteed wuxuu Sam kala soo booday buurta. Labada ninba waxay ka soo diloodeen buurta dhinaceeda oo ay soo dhaceen. Soo dhicidda awgeed Sam si xun ayuu u dhaawacmay, wuxuuna arkay laf ka soo baxsan lugtiisa halka Moses uu u muuqdo mid fiican. Labaduba waxay arkayaan in qoriga Sam uu waxyar u jiro. Moses ayaana awood u yeeshay inuu gacmihiisa ku qabsado qoriga. Wuxuu ku taagay Sam wuxuuna ku canaantay sidii uu u laayay asxaabtiisa sidii xoolo oo kale. Sam oo geeri qarka u saaran ayaa raaligelin ka bixiyay falkii uu sameeyay, wuxuuna ka baryay naftiisa. Inkastoo Sam uu sameeyay, Moses wuxuu go'aansaday inuusan dilin isagoo bilaabay inuu socdo, isagoo u malaynaya in saxaraha uu si tartiib ah ugu dhiman doono. Muuqaalka ugu dambeeya, Moses wuu baxayaa suu u helo Adela oo weli ag fadhida geedka tiinka oo xaalad halis ah ku jirta. Waxay u muuqataa inay ku jirto xaalad dawaqsanaan ah, wuxuuna ka codsaday inaysan rajo beelin. Moses wuxuu ku qaaday dhabarka wuxuuna u xaqiijinayaa inay ku dhow yihiin magaalada. Kadib markii ay socdeen maalin dhan, Moses wuxuu meel fog ka arkay nalal biliglaynaya, taasoo la macno ah inay ugu dambeyntii gaareen magaalada. Waana halka uu filimku ku dhamaanayo. Muuqaalka halkan ayuu ku egyahay. Fadlan taabo subscribe iyo like haddaad jeceshahay muuqaaladan oo kalena kommentiga hoose noogu reeb. Kulanti dambe oo aad u xiiso badan. Mahadsanid.